كور هدي أنكو شيء إن اليوتيوب ككذا وانكرت مقال كسته أديكو استعمال أي لغة هذا هايو ها waxaa jira extension la yiraahdo dubbing kaas oo ku ogolaanaya inaad luqad kasta oo muuqaal ku bixisa aad u bedesho luqadaada hooyo hadaba sidee loo sameeyaa marka ugu horeyso waxaan soo furanaynaa Chrome-ka Chrome-keena kadibna waxaan soo degsanaynaa extension la yiraahdo dubbing si aan soo degsanaynaa extension-ka waxaan ku dhufanaynaa saddexda dhibic kadibna hoos ayaan soo degaynaa waxaan dooranaynaa extension kadib waxaan ka sii dooranaynaa visit Chrome web store kadib halka waxaan ku qori doonaa wax la yiraahdo dubbing extension-ka u baahanahay waa midka marka YouTube dubbing and translate and dub midkaan ayaan soo degsanaynaa waxaa leedahay add Chrome ayaad ku dhufanaysaa add extension halka kaaga muuqato waxay noo soo degay extension-kii extension-kii wuu noo soo degay marka step 1 to 7 ilaa 7 step ay halkaan ka gudbaynaa waxaa leedahay dhammaantooda next ayaad leedahay next oo soo deg next step ugu dambeeyay kadib open YouTube soo furo marka kadib extension aan ka shaqeysiinayna waxaan ku dhufanaynaa extension kadib waxaan ku dhufanaynaa YouTube extension meesha halka kaaga muuqata marka kan waa luqadda muuqaalka uu ku baxayo tusaale ahaan haduu English ay ku baxayso muuqaalka haduu English ku baxayo English dooro hadii Carabi ku baxayo Carabi dooro hadii Kiswahili ku baxayo Kiswahili dooro okay hada muuqaalka rabo inaa u bedelo Soomaaliya waa English waxaan rabaa inaa u bedelo Soomaaliya halka waxaa ku qoraysaa Soomaaliya kaaga dooro translator la isticmaalo waa Google halkaas kaaga muuqato waxaad ka dhigi kartaa lab waxa kale oo ka dhigi kartaa dhadig hadii lab aan ka dhigo labka waxa inoo jooga oo waxa gabar la yiraahdo hadii dhadig aan ka dhignana wiil la yiraahdo Muuse codka originalka muuqaalkaas ku baxay daartu waa dheeray kartaa dhexda geli kartaa daartu ebra ka dhigi kartaa codka lagu tarjumayo codkiisa waa weyn ka dhigi kartaa ama waa dheeray kartaa isagana meesha marka joogto marka subtitle-ka waxaad ka dhigi kartaa mid translator ah off ayaad ka dhigi kartaa ama se waxaad translator only aad ka dhigi kartaa okay translator only no door size-ka subtitle-kaasna waxaad ka dhigi kartaa mid waaweyn ah ama yar yar ah mid yar yar aan uga dhig halkaan ogi isagana kadib waxaad dooran kartaa midka ubax ama se muuse no door kadib waxaa leenahay save I think if people are like, I want to accomplish this goal, the very next question is why? And then go, why? If your why is so strong, how it's going to be done, it doesn't matter. You'll figure out. You've got to... Okay, si halka u jeedid muuqaalkan hadaba wuxuu ku baxayaa luqadda Ingiriiska waxaan rabaa inaan u bedelno luqadda Soomaaliga si aan ugu bedelno muuqaalka aan ku soo celino kadib waxaan dooranaynaa play ayaan leenahay kadib marka halkan play aad tiraahdo wuxuu ku keeni doonaa inaad sameysatid waxa la yiraahdo haddii uu email hore ku sameysnaa waa sameyn kartaa ama hadaartid waxaad dhigi kartaa sign in waa maxay qaybta hoose waxaad dhigi kartaa sign up free si free isku diiwaan geli kartaa waxaa leenahay ku qoraynaa kadib waxaan sameysanaynaa password adag ayaan sameysanaynaa kadib waxaa leenahay continue kadib baaskayga computerka ay weydiinaya furay kadib waxaa leeyahay create account account-kayga sidaas ayaa lagu sameeyay halle marka sign ayaan leeyahay password-kana way ku jiro ii save gareysan yahay sidaas ayaa ku loogan gareystay hadda muuqaalka marka waxaa loo bedeli doonaa luqadda Soomaaliga ayaa loo bedeli doonaa wax yar aan isla sugno waxay ila tahay haddii dadku ay isku mid yihiin waxaan rabaa inaan gaaro hadafkan su'aasha xigta waa sababta kadibna tag sababta haddii sababtaadu aad u xoog badan tahay sida loo samayn doono dhib ma laha waad ogaan doontaa waxaad heshay buug la yiraahdo level up Rob Deal oo ka socda podcast mentor wax kasta oo noloshaada kugu dhacay ma aha
okay si halka u jeed marka muuqaalkan sidaas subtitle buu noo leeyahay